barta subscribe saar kambalaalkana furo sida mar walba ku soo gaaro notificationada markaan soo dhigo. Waraxmatullaahi wa barakaatuh. waxaan soo jeediyay Xudayfa Caydid Bile waxaanad ku soo dhawaataan YouTube-ka casharada caafimaadka. waxaan ku soo guuda jirnay markaan ka hadlaynay integumentary system-ka chapter-keeni koobaad ee anatomy and physiology, lesson-keeni labaad oo noo soo dhamaaday epidermis-ka. lesson-keena saddexaad baan u gudbi doonaa aan isla soconno. lesson-keena saddexaad maanta wuxuu ka waramayaa dermiska lakabyadii uu qaybsamay skin-ku ma ka soo waranay oo epidermis ugu sareeyay dermisna oo ka dhexe ahaa. marka dermiskan maanta ka waramanaa. dermisku wuxuu nooranayaa dermis waxa weeye waa layer, waa layerka of skin, waa layerada skin-ka mid kamid ah kaasoo that lies yaala beneath xagga hoose ee epidermiska aan above wuxuu ka sareeyaa the subcutaneous layer, layerkii baruurta ahaa ama magaciisa kale lagu magacaabi jiray hypoderm. It's the thickest layer, waa layerka ugu adag weeye of the skin-ka aan sameeyo wuxuu kana samaysan yahay oo fibrous miiqaq ama fiilooyin aan elastic tissue iyo nudayaal markaa elasticity oo markaa kala jiidmaya. This provide hadaba wuxuu na siiyaa strength, awood and flexibility iyo dabeecsanaanta the skin inuu skin kala dibdibco markaa skin-ku inuu noqdo mid flexibility waxaana siiya markaa dermiska waana shaqadiisa. hadaba skin-keenu hadaba waxaan idhi wuxuu ka samaysan yahay epidermis oo ka sare ahaa oo iyo dermisku markasta wuxuu dhacay ka dhexe waxaana ka sareynayay epidermiska waxaana ka hooseynaya hypoderm oo ah subcutaneous layer, layerka baruurta saad sawirka wada aragtaan. wuxuu ka samaysan yahay dermiskeenu collagen iyo fibroblast iyo elastin oo ah waxyaalo kala jiidmaya. haddaan ka socono dermiskeenu hadaba wuxuu u qaybsamaa isagu laba layer buu u qaybsamaa, papillary dermis iyo reticular dermis. hadaba muxuu tahay papillary dermis? The papillary dermisku is the more superficial of the two. papillary dermisku waa ka ugu sareeya marka la joogo dermiska. Unlike just beneath waxaanu hoos yaala the epidermal junction meesha iska tiraan dermiska epidermisku ayuu isagu dhex yaala. It's a relatively thin isagu duuban yahay wuxuu ka samaysan yahay connective tissue which include ay ku dhex jiraan capillaries, capillaro iyo elastic fibres iyo fiilooyin markaa kala jiidmaya, reticular fibres iyo fiilooyin markaa camal reticular iyo collagen. haddaan kasii socono reticular dermiska hadaba qaybta labaad is the deeper waa ta ugu hooseysa antigar uguna adag layerka ugu adag weeye of the dermis marka dermiska la joogo. which lies hadaba iyaduna waxay hoos taallaa above the subcutaneous layer xagga sare ee layerka baruurta ah ee haybada magaciisa la yiraahdo of the skin ku leeyahay. It contains waxay ka kooban tahay dense wax cufan connective tissue which include ay ku dhex jiraan blood vessels and elastic fibers, collagen fibers iyo nerve ending. saad sawirka ka wada aragtaan hadaba epidermisku waa ka ugu sareeya meesha ay iska jarayaan epidermiska iyo dermisku waxa u dhaxeeya wax la yiraahdo papillary layer. saadana sawirka aragtaan meesha ku xigta layerka ku xiga isaguna waa reticular layerkii isaguna u dhaxeeya dhexda kaga jira layerka hypoderm la yiraahdo iyo layerka yare ee papillary layer la yiraahdo. layerka baruurtana uu ka sareeya layerka epidermiska na uu ka hooseeya. lesson-keena saddexaad halkaas ayuu noogu eegyahay. la soco qaybta xigta. mahadsanid. barta subscribe saar kambalaalkana furo sida mar walba ku soo gaaro notificationada markaan soo dhigo.